isweydiisay ama ma aragtay caruur ama ilmo qalqaali ah, yacni orod badan, wax burburinaya alaabtii guriga oo kale, iskuulkii oo kale laga soo eriyo oo kelmaddan ADHD waxay u taagan tahay attention deficit. macnaheedu waxay noqonaysaa in attentionka ama soo jeedka ama feejignaanta ilmuhu ay hoos u dhacdo. waa attention deficit. Hyperactivityna waa maxay? waa qalqaalinimo iyo ilmihii inuu yeesho energy badan ama uu orod iyo dhaqdhaqaaq badan u sameeyo ayaa loo yaqaanaa hyperactivity. ADHD waa cillad caafimaad darro maskaxeed oo sababta heer ka baxsan kii caadiga ahaa ee lagu yaqaanay carruurta xagga dabeecadda iyo deganaanshaha. wuxuu ku badan yahay wiilasha in ka badan hablaha. dadka waaweyn oo ku dhici karaa xanuunkan. waa maxay astaamaha lagu garan karaa? dabeecado kala duwan ayaa lagu garan karaa, dabeecadahaasoo ka duwan ka ay carruurta caadigihii leeyihiin. waxaana ka mid ah calaamadahan ama astaamahan: in ilmuhu aanu danba ka gelin ama aanu diiradba saarin hawsha kolba waqtigaas u taala. tusaale ahaan akhriska oo kale. ilowshiyo la xidhiidha hawl dhammaystirka, wax walba oo uu qabtana dhexda ayaa uu kaga tegaya. si fudud buu ilmuhu isaga xanaaqaya ama u cadhoonayaa haddii wax lagu sameeyo. ilmaha yar fadhiga ayaa dhibaya, mar walba wuxuu jeclaanayaa inuu orod ku jiro iyo socod badan. ugu dambeyn, ilmaha xanuunkan leh wuxuu caan ku yahay inuu hadalka dadka ka dhex galo oonu dhegaysan. haddii ilmahaagu leeyahay ciladan loo yaqaano ADHD, waxaa laga yaabaa inuu yeesho qaar ama dhammaan calaamadahan. calaamadaha uu yeelanayaana waxay ku xidhnaanaysaa nooca ADHD ee uu qabo ilmuhu. ma attention deficit ba mise waa hyperactive disorder? soo noocyada ADHD-ga waxaan u kala qaadaynaa 3 nooc. kow waa kayn hore soo sheegnay oo ah digtooni la'aan oo loo yaqaano inattentiveness, iyo salfudayd oo ah hyperactive or impulsive, iyo nooc labadaba isugu jira oo loo yaqaano combinative. sidee loola tacaalaa ciladan? carruurta qabta ADHD waxay u baahan yihiin in laga caawiyo dugsiga, lana siiyo waxbarasho gaara oo loo qoondeeyey baahidooda gaarka ah. waxaa jira farsamooyin kala duwan oo lagu caawiyo ilmaha si uu u yeesho feejignaan iyo xirfado bulsho, kuwaas oo ay qaabeeyaan macallimiin, dhakhaatiir, cilmi nafsiga iyo dad ka socda dugsiga. daaweyn ayaa badanaa loo isticmaalaa carruurta qabta ADHD. xaaladaha qaarkood si fiican ayaa looga gaadhaa horumar. baaritaano badan ayaa muujiyay in daawooyinku yihiin aamin iyo wax ku ool. daawooyinka loo isticmaalo xanuunkan ADHD, daawadu maaha mid lagu daweynayo xanuunkan, laakiin waxay caawinaysaa in ilmahaagu dugsiga iyo guriga si fiican ugu shaqeeyo. daaweyntuna waxay soo saaraysaa awoodda dabiiciga ah ee ilmahaaga, waxayna ka caawinaysaa inay sameeyaan istaraatiijiyad kale oo ah barashada bulshada iyo xiriirkooda. la wadaag asxaabta, channelkana subscribe garee. inta badan xanuunkani da gaara ma laha ama xilli gaara ma soo baxo. xilli walba waa la arki karaa calaamadaha, laakiin xilliga ilmuhu iskuulka bilaabo ama school aged children waxa loo yaqaano ayaa xanuunku bilaabmaa. xilligaa wixii ka dambeeya ayaa la ogaadaa ilmaha yar in isbedel uu ku yimid dabeecaddiisa. siduu noqonayaa xaalka carruurta xanuunkan lehi? inta badan waxaa la dhahaa xaaladan inta badan way sii jirtaa ilaa markuu qofku qaangaadho oo weynaado, ilaa 60 ilaa 80 boqolkiiba. laakiin waxyaabaha wanaajinaya xaaladda ilmaha xanuunadan kusoo dhasha inta badan waa in lala tacaalo inta ay korriinka sameynayaan, iyada oo markaa ay ka qayb qaadanayaan waalidkii dhalay ilmaha iyo sidoo kale dhakhaatiirtii qaabilsanayd xanuunada ku dhaca maskaxda, iyo sidoo kale macallimiintii dugsiga joogtay. intaasoo isku tagtay waxay caawinaysaa ilmihii yaraa inuu soo kabsasho wanaagsan uu sameeyo. 2 xaaladood baynu soo sheegnay oo ah hyperactivity iyo inattention. inattention waxaanu nidhi ilmi yaraa u fiirsashadii ba ka baxaysa, wax u fiirsashadii oo attentionkiisii ma soo jeedayo. xaaladda kalena waa hyperactive, inuu ilmi yaraa yahay ilmo aan fadhiisanayn oo dhaqdhaqaaqiisu aad u badan yahay. xaaladda saddexaadna waa impulsive,
ilmi yaraa inuu si fudud u caroonayo oo u dagaalamayo oo uu wax u burburinayo. Saa darteed xaaladda impulsivity-ga iyo hyperactivity-gu ilmaha yar wuu ka bogsadaa. Laakiin xaaladdan inattentive-ka ee ah ilmi yaraa inaanu dhug yeelanayn oo wax u fiirsanayn waa ay sii jirtaa. Guud ahaan xanuunkani maaha xanuun sidaa u khatar badan, laakiin mar walba ilmuhu korriinka intaa korriinka uu ku jiro haddii lala tacaalo xaaladiisa dambe aad bay u wanaagsanaata. Bond 5. 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 Bond 5.